sidaad ogeydeen habeenkii isugu keen dambeysay aniga baan ka mid ahaa wafdiga wuxuu taliyuhu ballan qaaday baahida ugu horeysay ee xagga isgaarsiinta ah ciidanka booliska Puntland in si degdeg ah wax looga qabanayo safarkeenana wuxuu jawaab u ahaa ballan qaadkii taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed isla markaas muddo 7 casho ah oo safarkii xamar aan ku tagnay isla markiiba waxaan la amray inaan dib ugu soo noqono sidaad ka warqabtaan waxaan ka soo bilownay hawsheena muxuu ahaa gobolka Nugaal magaalo madaxda dowlad goboleedka Puntland Garowe halkaasna waxaan ka soo hirgelinay qalab isgaarsiineed oo isugu jiray qaarkiisna aan anaga xagga ka keenay inta badan ay halkan yaaleen laakiin ay baqaarada isaga xariisnaayeen xogaa aqoon la'aan awgeed waxa dhacday marka in aan hirgelinay systemka local systemka ah taasoo ka dhigaysa hab casri ah u programsan masaafo dheer oo magaalada oo dhan koobaysa iyo midda long distance loo yaqaan muxuu ahaa gobolada lagu la hadli karo dhammaanteed ayadoo halkaasi aan isku xir ka sameynay in gobolada ay ka shaqeeyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed meel kasta uu joogo ay ku wada hadlaan ay ku wada hadli karaan iyo midda localka waxaan ku soo xijinay haddana waxaan nimid Carmo sidoo kale labadiba ayagana waan ka soo hirgelinay ugu dambeyn waxaan hadda nimid meesha la yiraahdo Boosaaso aan ka hirgelinay systemkii ballanqaadka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed isgaarsiintii oo isla shalayba aan ku guuleysanay ilaahay fadligiisa in aan hawada soo gelino isgaarsiintii localka ahayd ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka booliska Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso runtii waxaan rabaa inaan mar labaad u mahadceliyo taliyaha ciidanka booliska aad iyo aad ay farxad weyn noogu tahay inaan maanta halkan ku daafureyno isgaarsiinta casriga ah ee ku xiriiraya ciidamada booliska salaan kadib waxaan marka hore u mahadcelinayaa labada jaran ciidanka booliska federaalka Soomaaliya iyo kan Puntland talaabada geesinimada leh oo ay sameeyeen oo ay isu dhexgeliyeen booliskii Soomaaliyeed waana shayga qura oo maantay aan oran karo ma kala qoqobna degmo walba iyo gobol walba waxa weeye boolisku hal erey bishtaa waa boolis taa waxaan ku amaanayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed dowladda federaalka ah Generaal Xaamud iyo taliyaha ciidanka booliska Puntland Generaal Cabdishaaq Kuwi waxaan leeyahay talaabo geesinimo wada waa sameeyeen mira dhalkeedina waan hel si gaar ah mar kale waxaan aad u amaanayaa jaranka ciidanka booliska Soomaaliyeed dowladda federaalka ah Generaal Xaamud ballanqaadkii uu nala galay habeenkii ugu dambeysay cashada village-ka inuu oofiyay oo aan hal wiigeyn ka soo wareegin waxaan u arkaa nin Soomaaliya nin Islaam ah nin ballan leh nin diin leh nin mas'uul ah horay federaalka waxyaalo badan oo ballanqaad aan u gali jiray warqadaha un baa hadda dhaska buuxsan jiray halkooda laga tiri jiray waxaan leeyahay talaabada waa bedeshay halkeeda ku sii hay